Assalaamu calaykum. Mawduuceena maanta waxaynu ku aadi doonaa dhanka iyo Khaliijka Carabta. Waxaynu kaga hadli doonaa mid ka mid ah dowladaha ugu qanisan caalamka iyo Carabta, dowladda Kuwait. Si aan barnaamijkeenan hore ugu soconno, fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, sina sheer garee barnaamijka si uu gaadho saaxiibo kale oo jecel inay nala dhegaystaan macluumaadka noocan ah. Kuwait waa dowlad Carabeed oo dhacda koonfur galbeed qaaradda Eeshiya, gaar ahaan cidhifka waqooyi galbeed ee gacanka Carabta oo xuduud kala leh dhanka bari, halka dhanka koonfureed iyo galbeedna ay ka xadayso Jamhuuriyadda Ciraaq. Dhanka waqooyina waxaa ka xadeeya Sacuudiga, waxaanay ku fadhidaa bad gaadhaya ilaa 17,818 kiiloomitir oo isku wareeg ah, halka tirada dadkeeduna uu yahay 4.67 milyan oo qof. Magaca Kuwait wuxuu ka yimid ereyga Kut oo macnaheedu yahay qalcad ama dhufays. Luuqadda koowaad ee lagaga hadlo Kuwait ayaa ah afka Carabiga, maadaama oo dal Carabeed ay tahay. Luuqadooda labaad ee dastuurka ugu qoran waa luuqadda Ingiliishka. Kuwait waxaa la aasaasay sanadkii 1613, waxaana awoodda waddanka qabtay qoyska reer Sabah oo ka soo jeeda qabiilka Cutub. Ilaa waqtigii la aasaasay, dadka Kuwait waxay ku tiirsanaayeen ka ganacsiga luulka oo kala dhexeeyay Hindiya iyo Jasiiradda Carabta. Wixii ka dambeeyay 1946 oo la bilaabay shixnaddii u horreysay ee naaftada laga dhoofiyo dalkaasi, dhaqaalaha Kuwait wuxuu ku xidhan yahay ama uu ku tiirsan yahay naaftada laga soo saaro lagana dhoofiyo. Siyaasad ahaan, Kuwait waa imaarad dhaxaltooyo ah oo uu xukumo amiir ka soo farcamay Sheekh Mubaarak Al Sabah, waana boqortooyo dastuuri ah, waxaana ay leedahay golo baarlamaan oo matala shacabka iyo golaha sharci dejinta. Qodobka 6 ee dastuurka Kuwait wuxuu tilmaamayaa in nidaamka xukunka dalku uu yahay mid dimuqraadi ah. Markii u horreysay ee saliidda laga helo Kuwait waxay ahayd 1936, waxaana ceelkii u horreeyay laga helay goob lagu magacaabo Baxra oo waqooyiga Kuwait ah. Saliidda ku kaydsan Kuwait waxaa lagu qiyaasaa 104 bilyan oo barmiil, waxaanay u dhigantaa boqolkiiba 7.66 saliidda caalamka. Micnaha waxa uu gaadhayaa cimriga saliidda Kuwait ku dhowaad 92 sannadood. Lacagta ay dowladdu isticmaasho ayaa ah diinaarka Kuweydiga, waxaanu halkii diinaar u dhigmaa $3.50 Mareykanka ah, waana midda ugu sicirka sarreysa lacagaha ay dowladuhu isticmaalaan. Dhacdadii taariikhiga ahayd ee ay Ciraaq ku qabsatay Kuwait waxay ahayd mid taariikhiya, kadib markii ay 2 maalin gudahood 2dii bishii August 1990 ay kula wareegtay xukunka Kuwait kana dhigtay mid ka mid ah gobolladii hoos imanayay Ciraaq. Ma rabno dagaalkii 2 cisho iyo qabsashadii Kuwait inaynu ku raagno, oo waxaynu kaga hadli doonaa xalqad kale, balse Kuwait waxay xorriyaddeedii dib ula soo noqotay 26 February 1991, muddo 7 bilood ah kadib. Kuwait hadda waxa ay ka mid tahay dowladaha ugu qanisan caalamka. Mawduuceeni maanta intaasi ayaa uu ku eeg yahay. Intaynu mawduuc mid ka mid ah aynu ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.